adduunkan aan ku noolnahay maxaa jira waxyaalo ilaa hadda mystery ah oo la jawaab way oo si walba loo fiiriyo nin walba aqoon loo keenay la jawaab way jira sidaa daraadeed maanta maxaan fiirin doonaa waxyaalo ay wax ka mid ah mystery wax la soo koobi karo maaha wax hal video lagu soo koobi karo maaha wax toban video lagu soo koobi karo maaha maalweyd maxaan ka soo hadlay pyramids aan ka soo hadlay waa maanta maxaan ka hadli doonaa moving rocks dhagaxyo socdo sidooda caadi oo socdo it's not an optical illusion wax oo loo maleynaa maaha laakiin waa wax run ah sida caadi ay u socdaan la arkaa dhagaxyo kuna kana video ka mid ah nin daara doona ee fiirsada this is mystery. Death Valley meel dhah oo California ku taasho maxaad la kulmaysaa dhagaxyo caadi u soconaya waa optical illusion maaha wax yani oo loo maleynaa maaha dhagaxyaha caadi u soconayeen saa u jeedin meeshan waa dhul caadi oo baraarax oo binaan ah dhulkaanayta alafu dhagaxyahanayta waa dhul weyn ay ku socdaan waa wadooyinkii soo maray hata waa la arkaa oo sida qof meel mar camal footprint oo raadman arkay waa kuwana raadkoosa u jeedin dhagaxya qof riixana malaha oo riixa ma waxaan dhagaxyo ah dhagaxyahanaytu waa adduunka waxyaalaha la yaab kale waa saa u jeedin socodkooda oo distance ka faagarin 100 mitir ay gaarayeen waa distance weyn ay soconayna oo intaasoo distance ka faagarin saa u jeedin waa kana dhagaxyaneed ilaa hadda wax jawaab ma laha maxaa la aaminsan dhagaxyaneed intii marka oo waqtiga xilligada qawiyaha marka la joogo oo baraf ka daa intii oo ice ka dhagaxyaha markuu qabsado oo riixma alaf dabeesha subaxdii maada ayaa si riix sida daraadada ay distance ku ka faagarinayeen waa ilaa sida la dhigahay ilaa hadda cid keentay ma laha dhagaxyaan sababta ay socdaan waa ilaahay amarkiisa sidaas soo daabateen waa maxaa la dhahaa moving rocks ayaa la dhahaa maxaa dhagaxyahanayta way soconayeen alafu ilaa hadda camera qabatay malaha ama oo qabatay oo sharaxday malaha siday u socdaan maxaa la dhahay hadda ka hor wheel ayaa camera duubay oo maxaas dhahay these things maxaa wada habeenkay socdaan oo dhahay habeenkay socdaan oo dad wada ama yani dad ma wadaan laakiin waxaan ayni an aided illu arkin camal waa so he used an lens oo isticmaalay oo very hard uu ku qabtay so kameradii maxay qabatay waxyaalo sidii hila camal oo san dhaha oo hormaray waan inta soo fiirsado kasa haweenada kamid oo January 2024 wiilkan ayaa go'aansaday intuu ogaado waxa haweenkii dhagaxyahan riixay ama dhagaxyahanaytu wada kamero classic may soo dhigtay waa kana hadda haweena la joogaa oo space ku kulli kamerada soo qabani so waa kana wax adu arkaa fiirsada waa kaas ma jeedin waxaan adoo wareeganahay oo saan u socdo wareeganahay ayaa la aaminsan intii waxaan dhagaxyahan ay wadaan ilaa hadan waxay yihiin meeshay ka imaadeen meesha socdaan cid ogaatay malaha oo jeedino kana wareeganayaan kamerada qabanaysa waxaan kulli zoom al dhawaakaas ibtuna wax garnahay malaha dhagaxyaan maxaa la sheegaa intii markii la riixal dhaha oo labada la dhaha waa heavy waa culays waa wax adag oo culays oo binaadana riixi kar ma bal dhahay baashii maxaa koos galay hal dhahay markuu qabow jiro habeenkii hal dhahay habeenkii qabow waa jirsama sida hadda joodin waa habeenkii markuu ay soo daa ice ka hadda diihay dhagaxina waa kaas roogo so ice ka markuu bibi yar noqdo oo medium noqdo biinahan dhagaxnahan wada markuu dhagaxu jiida alaf dabeela jirta habeenkii dabeeshida soo riix markuu dhagax soo riix taas way dhagax distance uu ka fagarina uu socona marka some mystery yani some say like that maxay dhahay ku ninka camera qabteen muxuu dhahay samhila hormara si camera ku soo aragteen anaan intu suwa saswa ilaa hadda wax jawaab ma laha so I will try to use copilot intii ay jawaabi karta ama wixii koos gareena inuu sheegi karta let's find intii wax aaday some points ay naga siin karta sidii u dhaceen iyo sidii ay u socdaan waxa kulli how they happen bismillah wax qeyr qabiilay ka soo sheeg some points aan raadinayna so maxaa weydii general questions weydii sidee ku socon karaan dhagaxsaas ku socon karaan dhahay I'm trying yani meel dheer aan ka soo gelin rabaa si let's find maxaa la erosion and transport ay dhahday water wind gravity can move rocks from one place to another for example rivers can carry small rocks tan iska caadi biyaha dhagaxyaha la socdo sailing stones are like in places like Racetrack, Playa in Death Valley. What an amid an issue mark number 2.
in places like Racetrack Playa in Death Valley, California. Rocks mysteriously move across the flat desert floor, leaving long trails behind them. This phenomenon, known as sailing stones, occurs when thin sheets of ice from around the rocks during the winter. As the ice melts and breaks up, it creates enough force to push the rocks along the ground. This is the point that I wanted. انتي يعني اي شيء كرتا ما فيرني انا يدوم بتاون you can see how does the rocks move and say dhagaxay u socdaan. So idaa kasoo dhex baxday dhagaxyuku wixii ka wad iyo wixii kale waa fahamtay. So in places like Racetrack Playa in Death Valley ayaa la dhahaa California ay ku tashaa. Rocks mysteriously move across the flat desert floor ay dhahday waa dhul caadi flat waa. So meeshii markii like yani qof markuu meel mara footprints ama mar arkay so red mar arkay meeshan ay red ay maxal dhahaa dhagaxyo meeshii ku soo jidmeen waa it's like bahal camal ama wax markay meel maraan so ma arkaysid so wadadis marso markays that's what is called in tragood camal wal arka leaving long trails behind them. This phenomenon known as sandstones are lahaa magacooda waxa dhagaxya iyagoo socda la occurs when thin sheets of ice form around the rocks during winter. As the ice melts and breaks up, it creates enough force to push the rock along the ground. Markii qabowaas dhaca oo qabowaas imaado alaf ice ku yar meltagreena as the ice melts and breaks up. Ice markuu yar meltagreeyo zaid u meltagreynaya markuu wax yar meltagreeyo oo dhagax u noqdo dhagaxna maaha biyina maaha. That's what is it oo dhaha yani ice melts. So markii biyaha dhagaxaysas ay ku noqdaan dhagax marka maxalay marka ice ka soo wada after the end of the process markay meel istaaga wala imaana meesha waxa la dhahaa maxay yaala meesha somare ay wadada sama luqluq somara ana ila had mafahmisani wana no some things maxaa jira la dhahaa hada amal markay wax dhacaan suggestions waxa la dhahaa jira qafal muxuu dhaa point to turna ani Mr. Kuresa California taga maxaa dhahaa this rocks moved because of this any some qafal point to turna so some points are stronger some points are weak. That's what bring the difference mar. So this point qafka dhahay ice ay melt garay oo waxaan kule dhagax wada dhahay maxaa way someone that or point is stronger in noqot. Sometimes it works because California wa during the day the temperature is high so at night qawa imaana waa fahmaysin qoraxd markay maanta kuleel ay tahay kuleel zaid markay tahay habeenkii alaf qawa imaana so some places marka dhagax caadi ka daa marka ice caadi ka daa that's what's goes. Biological activity. Sometimes animal or plant can move rocks. For instance, one can display small and trees roots can lift rocks as they grow. maxaa lahayd meesha maxalli animals yani markii aan xoolaha markay socdaan oo dhulka socdaan dhagaxay dhulku turturayaan Soomaaliya yani lugaha dhulka ku socdaan. That's what is called biological activity. One run this place maxas ma jira xoolo meeshii mara malaha waxa la dhahay the only thing oo la sheegay up to now la aaminsan maxaa way intii dhagaxay ku ay say wadaan waan ilaahay awoodis ilaahay qadartiisa. In this world a lot of things mysterious things are jiro up to now cid explain gareys cid saan waa dhaxdwalway. So waxa way yani dadka markay imaanaan yani suggestion la baxsanaa. So this point seems to be strong because I think ice markuu imaana oo ice oo subaxda la gaar rabo ice waa meltagreena mar intuu meltagrein on dhagaxasi then it travels it goes with the rocks. Okay wax kala sii weydiinayna dara wax badan intii naga faahfaahaysa. Okay so hadda meesha maxayna tusaysaa copyright maxayna sheegaysaa the way the ice is formed, the way the process takes place ayna tusaysaa. maxaa lay here it's how it works. Ice formation during winter Allah qabowga waqtiga qabowga a shallow layer of water covers the playa. At night temperature drops causing thin layer of ice to form around the rocks. So maalinta qoraxda kuleel
habeenk markii maara temperature waa soo dhici markii temperature dhacdin waa fahmaysiin some places qabow way noqoni some places na waxa waa yani dabayl qabow yaray mana some places ice caadi ka daa markuu temperature oo hawada ay hoos soo dhacdo so markii habeenkii markii la gaaro qoraxda maxaa la dhahaa oo temperature hoos soo dhacdo maxaa la dhaca markii dhagax ice yar dhagaxya ku korkiis ku form gareysma okay ice break up and wind as the sun rises and the temperature increases the ice begins to melt and break into large floating panels. Light winds push the ice panels, which in turn pushes the rocks, causing them to slide across the playa. That's what I was telling you. Markii qoraxda subax la gaar rabo subax lama gaar ice yar dhagax haday qoraxda qabato already it will start to melt. But meeshaan markii qoraxda soo baxay temperature sida xalay qabowga zaid maaha qabowgana kuleel zaid ma so waa between waa marka waa kana marka as the temperature rises as the temperature increases the ice begins to melt and break into large floating panels light winds push this ice panel so dabeel yar imaane markii ice oo dhaxda ku jiro biinahan dhagaxneen dabeel yar imaane dabeesh ida ariix marka la ariix markii oo distance amal iska baagareena abto qoraxdu maana oo ice ka saas bii ka noqon oo dhulku sii gala wariix distance ida riix tracks the rocks have behind trails that can be up to 100 meters. Oh, these tracks vary in direction and length, and sometimes rocks that start next to each other end up taking different paths. Maxaa markii dhagaxan soo maanta inta ma joogan maanta inta jooga Soomaha beriya loo imaana the distance they have covered was almost 100 meters wa laba dhagaxaad saan isoo agtaashay beri markii la isku imaana dhagax ka mid kale xagu yaala kawaaba kala meel waa kala wadana bi joogan bacama distance kala meel ay aadeen direction kay bedelanayeen so it sometimes I mean kara waxa waaye markii oo dabeel ay maado dabeel dhinac walba wax u jeedin so ice kan dhinac aan isu jeedina distance weyn iska fagarina marka so ana midan ana iska dhacsiin waxa waaye the distance they will cover along or socona maxaan dhigi karaa aniga Mr. Kuriyasaan maxaan dhigi karaa depends on yani the temperature ku xiran let's say for example ice waa break recently waa dhagaxii socday bilaabay isla marka qoraxa soo baxday the rocks will stop there because the ice all with wind wax kulli waa melt greenine but haddii temperature sii socoto oo subaxda camal qabow soo jira adoo temperature the longer temperature ay high is low gradesanta the farther they will go the temperature daaraka ay kulaato isbedel uu asharka qoraxda soo baxda the rocks meesha istaagayeen maalintii meel uu dhaqaaqaynaa that's what is it The phenomenon was mysterious for many years with various theories proposed, including strong wind and even magnetic field. Okay, however, in 2014, researchers using time-lapse photography and GPS tracking confirmed that the movement is due to the combination of ice, water, and wind. Would you consider okay? So, محل هاد أول محل يعني mysterious قفل point to turn. So, محل هاد researchers using time-lapse photography and the GPS tracking confirmed that the movement is due to the combination of ice, water, and wind. Markii oo 2014 markii la joogay si aad video horneyn soo tusi 2014 markii joogay ayaa sawir la qaaday oo camera oo high classic lagu qaaday so waxa la socda la tusi aldhiis waxa siita kulli ayaa la dhahay maxay sabab karaan maxay sabab yihiin intii oo dhagaxyaas ay socdaan oo waxyaalo badan oo nisoo gudbin doona so channel-ka dadku cusub tahay subscribe saar sidaas nabad geliyo maxaan u dhibanay waxaan kala aan soo kala tuura insha Allah ku yeerin